dalkan Mareykanka waxaa mar kale soo laba kacleeyay faafitaanka cudurka COVID-19 iyadoo guud ahaan dadka laga helay cudurkaasi ay haatan gaarayaan 5 milyan oo qof. Cudurkan ayaa saameeyay ganacsigii gaar ahaana dadka ku tirsan meheradaha yaryar. Haddaba meheradaha uu sida weyn u saameeyay waxaa ka mid ah kan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala gudba gobolada kala fog ee dalkan Mareykanka. Ganacsigaas oo Soomaali badan ay ka shaqaystaan. wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa arrimahani ka wareystay Xuseen Cabdulaahi Nuux oo ku magac dheer Baraawe oo ah darawal ku shaqaysta gaari xamuul ah oo uu isagu leeyahay. Niyow saameyn badan oo nagu yeeshay dunidoo dhan uuna saameeyey waa musiibo la soo diray. Shaqadii aan ka shaqaynaynana annaku inta badan warehouse iyo aan rar ka qaadnaa warehouse-yadii xirme qaarkood sida inta badanba waa xirmeen. Marka shaqadeenu saasay u yaraatay meeshii aan isbuucii 4 trip ilaa 5 trip aan geli jirnay maantay 1 trip aan galnaa. Sometimes tripkii oo la helayo tripkii iyo mailkii kilometerkii isku lacag maaha qiimihii iyo mailkii markaa isku fiirisid. Marka waxaa taas kaaga fiican inaa iska joogtid. waa garta adigu marka maadaama aad qof arrimaha ku shaqaysta aad tahay oo shaqadiisu ay tahay inuu baabuurka weyn xamuulka ah uu ku shaqeeyo, haddii ay hoos u dhac intaa leeg uu idinku yimid maxaad samaysaa hadda adigu? Niyow horta saameyn markuu nagu yeeshay waa fariisanay dowladda Mareykanka federal 600 ay noo ansixiyeen. lacagtii waana celi weysay xagga markii biilashii iyo rentigii guryaha lagu bixinayay iyo insuransigii iyo lacagtii way nagu filnaa weysay. Hadda wadadii aan kusoo laabtay adiga bishaan wadadii aan saaranahay. marka waa sidee hadda shaqadu? weli walaa wax isbedela ma jiraan oo shaqadii waa aaday u liidataa. marka waxaan rajaynaynaa inaysaan kasii fiicnaato. marka miyay jirtaa shirkado amaba dad iyagu baabuurtan ku shaqaysta oo cudurku aanu saameynin ama shaqadoodii aanay yaraanin oo sidii u shaqaysta? haa, dabcan way jiraan shirkado uusan saameynin sida shirkadda Felix iyo UPS. boostooyinka lasoo diro ayay qaadaan. marka boostadii Mareykanka weli ma joogsan, way shaqaysaa. nimankaas taraagleyda shaqadoodu way kala socotaa. marka kuwa dadka adigu kula midka keligood shaqaysta uma shaqayn karaan miya? maya, uma shaqayn karaan maadaama annaku magacii iyo annaku israrno wixii dhan aan annaku leenahay uma shaqayn karno. bal iiga sheekee adigu marka qaab nuucee ayaad u shaqaysataa? Niyow qaabka aan u shaqaysto aniga waxaan ahay owner operator. kambanigan anaa iska leh, anaana israra. marka rarkii markii aad raadsanaysidna sida qofku markuu wax raadsanayo kala onlineka soo gale onlineka ka raadsanay rarkii qofaad kala hadlay rarkii aa u qaadaysid. mailkii yaa fiirine, lacagtii yaa fiirine, waxaasaa isku xisaabine iyo shidaalka baxaya kay faa'iido kugu jirtaa qabsane. marka hadda wixii meesha la soo gelinaya wax ka qabsan jirnay aa yaraaday. marka Soomaalida marka taraagyada ku shaqaysata waxaan la socdaa inay Soomaali aad u fara badan ay taraag leeyihiin. ma sidaadoo kale u badan yihiin mase Soomaali laftoodu shirkada leh oo qaabka shirkadaha ku shaqaysta jir ahaan? Niyahow Soomaali way jiraan oo dad Soomaali badan oo isku dagaa jira oo baabuur badan haysta. xoogay kuwaas waa shaqadoodu way kala socotaa maadaama aniga aan hal gaari ahay. maanta markaan rar meeshaan ka qaado oo brokerkii aan u qaado, biri markuu ii soo diro rar kale magaaladii maba joogaba waa ka maqan rarkii aan shala qaadaan wada. saameynta marka annaka dhibaatada halkan noo keenaysa. laakiin kuwa kooxda u shaqaysanaya walow ayaga laftoodana uu saameeyey, laakiin adinka waa idinka dhib yaryihiin? way naga dhib yaryihiin haa, maadaama ay baabuur badan haystaan iyo darawaliin badan way naga dhib yaryihiin. waxaa kaloo jirta dowladda Mareykankana hadda waxay noo ofargaraysa lacag oo businesska dadka businesska lagu kabaayo. marka ayadana waa la qaatay. sida hadda muuqata cudurkii dawad looma helin, saameyntiisiina weli way jirtaa. shaqada taraaga ma sii wadaysaa oo ma u arkaysaa in ay isbixinayso mise si kala laga yaabaa inaad uga caragedisato? Niyow shaqadu horta waa xirfad aan anagu ku shaqaysano. maantana dee Mareykankaan joognaa oo shaqooyinkii
meel kasta saanay ugu imaaday dhibku waa ku dhabar adeegaynaa intay wax iska bedelayaan. xuseen cabdulaahi nuux oo u waramayay maxamuud mascade ayuu ahaa.